madaxweynaha Somaliland iyo wasiirka amuuraha dibadda ee dalka Israa'iil oo shir-xaafadeed si wadajir ah u qabtay kaas oo ahaa luqadda Ingiriiska ayaa ugu horeyn madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro oo hadalka ku horeeyay waxaanu yiri It is with great pleasure and honor that I warmly welcome you to the Republic of Somaliland, Mr. Minister. Your visit farxad weyn iyo sharaf ayay ii tahay inaan si diiran kuugu soo dhaweeyo adiga dalka Jamhuuriyadda Somaliland mudane wasiir booqashadaadu waa mid xambaarsan dhacdooyin taariikhi ah hoostana ka xariiqaysa gaadhida guul muhiim ah oo horumarka xiriirka u dhaxeeya Jamhuuriyadda Somaliland iyo dawladda Israa'iil ah taas oo muujinaysa inaan kaliya aqoonsi siyaasadeed aanay ahayn laakiin sidoo kale aynu wadaagno isxulafaysi muhiim ah oo danaheena ku dhisan political recognition but also a shared commitment. Somaliland values this partnership highly and approaches qiimaha Somaliland uu ugu fadhiyo isxulafaysigani waa mid aad u sareeya we are committed to building a waxa naga go'an inaanu Israa'iil wada yeelano xiriir laba geesood ah oo istiraatiiji ah oo labadeena dhinac faa'iido inoo leh security, economic and development domains. oo aasaas ay u tahay iskaashiga dhinacyada amniga dhaqaalaha siyaasadda iyo kaabayaasha dhaqaalaha iskaashiga nima noqon doono mid afka ah ee wuxuu noqon doonaa mid toos u muuqda Your presence here today demonstrates leadership, confidence in the future of our relations. It sends a strong message that Somaliland and Israel are ready to deepen engagement. joogitaankaaga maanta ee halkan wuxuu muujinayaa kalsoonida mustaqbalka ee xiriirkeena labada dhinac wuxuuna dirayaa fariin adag oo xambaarsan in Somaliland iyo Israa'iil ay sameynayaan horusocod wadajir ah oo lagu horumarinayo xiriirkooda oo ay ku jirto in safaarado ay furtaan I wish to assure you of our full readiness and political will to establish our embassy in dhankayaga waxaan doonayaa inaan ku xaqiijiyo adiga inaanu si buuxa diyaar ugu nahnay inaanu safaarad ka furano Israa'iil waxaan taageeraynaa in Israa'iil dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo muuqda oo shaqeynaya ay ku yeelato Somaliland oo ay ka furato safaarad dalkayaga in Israel and to support a permanent and effective Israeli diplomatic presence. Honor to be in Hargeisa. intaasi kadib wasiirka wasaaradda amuuraha dibadda ee dalka Israa'iil Guillaume Sarr oo isaguna halkaasi ka hadlay oo luqadda Ingiriiska ku hadlayay ayaa yiri Thank you, Mr. President, for your personal invitation and gracious hospitality. farxad ayay ii tahay inaan safarkan taariikhiga ah ku imaado Somaliland waad ku mahadsan tahay mudane madaxweyne caasimadda sida tooska ah adigu iigu soo dirtay iyo in soo dhaweynta milgaha maamuuskii sharafta leh aad ii samayso waxaan kaaga mahadnaqayaa saaxiibtinimada dhow iyo hogaaminta aragtida quman ku dhisan And leadership. Mr. President, it is an historic journey. I held meetings with you and your team. We had an ongoing and extensive dialogue for many months. The relations that we build are based on trust and mutual respect. mudane madaxweyne waa safar taariikhi ah kulamadii aan wada yeelanay adiga iyo tiimkaaga doodihii qiimaha badnaa ee aynu soo wada yeelanay bilo badan kuna dhisnay xiriirkeena saldhigga uu yahay is-aaminaadda iyo is-ixtiraamka labageesoodka ah 26 Diseembar sanadkii hore 2025 Israa'iil iyo Somaliland waxay saxeexeen heshiis aqoonsi laba dhinac iyo asaaska xiriir buuxa oo diblomaasiyadeed waxayna ku heshiiyeen in aynu isweydaarsan We agreed to work together to promote relations between our countries. waxaynu ku heshiinay in aynu isweydaarsanno safiiro sidoo kale labada dhinac ka kala furano safaarado taasina dhawaan way hirgelaysaa si dhab ah Not only between governments, also between the people of Somaliland and the people of Israel. waxaynu dhisaynaa xiriir aan ku koobnayn dawladaha balse mid qoto dheer oo u dhaxeeya labada shacab ee Somaliland iyo Israa'iil waxaynu ka wada shaqeynaynaa iskaashiga labada dhinac ee dhaqaalaha waxaynu ka wada shaqeynaynaa iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha beeraha iyo ka sii badanba Across a wide range of fields
economy, agriculture, and much more. We recognize that water supply is a key sector for Somaliland. Therefore, we are glad to provide our assistance and expertise on this matter. waxaan ognahay in horumarinta helitaanka biyuhu Somaliland ay muhiim u tahay. waxaan ku faraxsanahay inaan Somaliland u soo diri doono khubaro dhanka biyaha ah kuwaas oo daraasayn doona sidii biyo kaafiya baahida loo qabo loo soo saari lahaa. We'll bring local professionals from Somaliland's water sector to Israel for training. We'll also send Israeli experts here to help implement the new capabilities. bilaha soo socda waxa Israa'iil lagu soo tababari doonaa khubaro dhanka biyaha oo reer Somaliland ah. In recent years, 49 children from Somaliland have undergone life-saving heart surgery in Israel. sanado badan Israa'iil waxay qalliino u sameysay carruurta Somaliland 49 carruur ah ayaa loo sameeyay qalliino wadnaha ah. waxaanu sii wadi doonaa taageerada dhanka caafimaadka ah ee Somaliland aanu siinayno. sidoo kale waxaanu sii xoojin doonaa iskaashigeena dhinacyada difaaca iyo horumarinta. We will also cooperate on defense and develop a strategic partnership. Somaliland first gained its independence in 1960 from British colonial rule. Somaliland waxay xornimada qaadatay 1960kii taas oo maalmo kadib Soomaaliya la midowday si ay hal dal u noqdaan. waxa dhacday in xasuuq iyo dhibaato 80aadkii dawladii kacaanka u geysatay reer Somaliland. Israa'iil waxay noqotay dawladii kaliya ee cambaaraysay xasuuqaasi qaramada midoobay geysatay ee lagula kacay dad gaaray 200,000 oo qof oo dadkiina ah oo la xasuuqay. At the United Nations, the horrific mass murder of 200,000 of your people then. We stood by you then as we stand by you today. shalay waan idin barbar taagnayn maantana waan idin barbar taagannahay. Somaliland decided to restore its independence. Unlike Palestine, Somaliland is not a virtual state. It's a functioning state. Somaliland is a fully functioning country based on the principles of international law. Somaliland waxay xornimadeeda la soo noqotay 1991kii. ma aha dal hadda aan jirin oo la sameynayo. waa dawlad si buuxda u buuxisay shuruudaha caalamiga ee dalnimo. xukunkana si nabad ah oo dimuqraadi ah ula kala wareegta. dhanka reer galbeedkana u janjeedhay xulafaysiga siyaasadeed Israa'iilna la saaxiib ah. Mr. President, Israel is truly honored to be the first UN member state to recognize the Republic of Somaliland as an independent and sovereign state. This is the moral, Somaliland u aqoonsaday dal buuxa ee qaramada midoobay fadhiya. qofna nooma sheegi karo cid aanu aqoonsanayno iyo cid aanu xiriir diblomaasiyad la yeelanayno. Nobody will determine for Israel who we recognize and who we maintain diplomatic relation. I want to remind that the 2005 African Union fact-finding mission stated that Somaliland's search for recognition is self-justified. xaqiiqo raadintii ay sameeyeen 2005tii midowga Afrika waxay sheegeen natiijadii ka soo baxday inay tahay inay Somaliland buuxisay shuruudaha dalnimo. We recognize the simple truth and the existing reality. We hope waxaanu aqoonsanay Somaliland annagoo xaqiiqadaas aan iska indhatiraynin. dawladaha kalena way nagu raacayaan wayna u qalantaa meeqaamkan. waxaan ku faraxsanahay inay Somaliland ka mid noqoto dalalka ku jira heshiiska Abraham Accord. madaxweyne Somaliland's intention to join the Abraham Accords. This is a natural connection between democratic countries, both in challenging regions. Mr. President, madaxweyne waxaan jecelahay inaan kugu wargeliyo. In our meeting I restated Prime Minister Netanyahu's invitation for you to come on a state visit to Israel. We hope to welcome you. madaxweyne waxaan jecelahay inaan kugu wargeliyo in ra'iisul wasaaraha iyagu kugu casuumay inaad booqasho rasmi ah aad ku timaado Israa'iil.
national anthem. maanta waa bilow xidhiidhkeenu sanado badan ayaa uu sii jiraya Somaliland ha guulaysato Israa'iil ha guulaysato be the beginning of a close friendship between our nations for many years to come. God bless Somaliland. God bless Israel. Thank you. ayaa uu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay wasiirka amuuraha dibadda ee Israa'iil intaasi kadib madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro oo mar kale hadlay ayaa ka dareen celiyay casuumaadda uu fidiyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil waxaanu yidhi I declare that I have accepted the invitation of the Prime Minister. wasiir waxaan rabaa inaan kuu caddeeyo inaan aqbalay si buuxda martiqaadka ra'iisul wasaaruhu uu ii fidiyey waxa aan booqasho rasmiya ku iman doonaa Israa'iil I'm proud to say, I'm not shy of saying it, that we will open our embassies in Israel. mudane ka xishoon maayo inaan idhaahdo safaarad rasmiya waanu ka furanaynaa Israa'iil annaga oo xoojinayna xiriirkeena ayaa uu ku soo afmeeray madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro